السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وإذن سلام يا مركورة ميل بود يقدر ونسان يسير بود إيه مغلسان دور قضب أو يرى وكوكوان بدون يا إن الميد بمردول استاجو وإنه ما أنت كفران قينا رمي قدام بيه قضب كوكو الرأيو عندون يو إن كهذا وحوي لمشدي أفاينكي الشباب على دارة أو مركي للشيء أي قدام بيسي عدم بو حقتها سحقي جسا يعدم بو كهذا الشام markii hore oo ay xogta ay soo baxaysay runtii sooska ay ka soo baxaysay waxay ahayd soos aan lagu baranin inay xogaha noocaay ay faafiyaan waxa arrimaha noocaay oo kala faafin jiray hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka iyo wasaaradaha kale ee dawladda iyo TV-ga qaranka iyo meelaha baa lagu bartay in xogaha noocaay oo kale taa ama madaxda sarsare al-shabaab haddii ay dhintaan meelahaas lagu faafin jiray ma aysan jirin in radio-ga ciidanku arrimaha uu faafiyo inta badan meelaha ay qabsadaan dhimashada iyo hawlgallada ciidamada u bay faafin jireen marka waa arrin cusub bay ahayd markii la fiiriyana sida ay xogtu u qornaydna runtii waxa ka muuqatay qaab aysan jirinin soo xigasho dhaba iyo cidda laga soo xiganayo xogtaasiba sida daraadeed ma jirto marka cid dambe arrintaasi ka hadasha waxaan kaloo arki jirnay markii ay arrimaha noocan oo kala ay dhacaan oo qofka nooca oo kala la dilo dadka ugu horeeyo ka hadlo waxay ahaan jireen sirdoonka reer galbeedka ee dalkanaga maanta xoogga ku haysta khaasatan kuwa Mareykanka kuwa reer galbeedka kuwa ayo dhan European Unionka kuwada Faransiiska Ingiriiska this hatta kuwa madowga ah African Unionka kuwa waxa shaacin jiray laakiin xogtaani waxay noqotay xog aan inta soo dhaafin ayaguna ma aysan sheegin sirdoonka ugu sareeya ee dalka Soomaaliya joogay waxyaalaha sheega oo kuwa Mareykanka arinta kama aysan hadal inta badan ayaga arrimahaasi ka sheekeeyay hadii ay duqayn sameeyaan iyo hadii qof noocay la dilo oo madaxa ayagaan inta badan saraakiishaasi beegsada waana ayaga kuwa lacagta badan ku xira cidii soo heshay xogtooda marka arintaas waxay iska noqotay arrin runtii halka looga tago marka aamusnaanta meesha ka soo baxday waa arrin cadaynaysa inaysan waxaasi wax ilaahay abuurtay oo ka jira aysan jirinin balse laga yaabo in loo isticmaalayay qorshayaal siyaasi ah oo la doonayay in dawladda looga dulqaado barasharkii haystay marka ma garanay intii laga lahaa laakiin waxaan idin xaqiijinayaa in suurtagalnimada in kaasi u dhintay ay yar tahay maadaama dhowr maalmood dambe aan siinay bal fiirino halka ay xogtaasi ku dambayso cid dambe oo sheegta xaqiijinteeda ilaa haddana aysan jirinin way adag tahay arrintaasi inay wax ka jiraan waxayna u badan tahay inaysan waxba ka jirinin laakiin daran siyaasi ah laga lahaa qodobka intaasaan oga baxaya waxaan kaloo ka hadlayaa odayaal cod laga soo duubay oo maalmihii la soo dhaafay oo dhan la wadwaday baan doonayaa inaan dul istaago waxaa la xaqiijiyay xog kala duwan ay xaqiijiyeen in nimankaasi ahaayeen niman odayaal ah oo laga soo abaabulay fila Soomaaliya isla markaasna dana siyaasi ayaguna laga lahaa in cod laga duubo waxyaalaha la yaab kale ayaa waxa kamid ahaa odayaasha hadlayay mid kamid ah magaciisa ma jiro wajigiisa lama hayo iday yihiin lama garanayo kaliya waxa la dheehan karay ama la fahmi karay laajada ay ku hadlayaan inay tahay laajadii beesha madaxweynaha ama dadka ka agdhow oo kale baa la dareemay iyo qaabkay u hadlayeen iyo xaaladda ay ka hadlayeen baa la oran karayaa waa odayaal reer hebela laakiin evidence kale kama hayno magacooda kee ahaa sawirkooda kee ahaa muuqaaladooda cid garan kartaa ma jirto wuxuuna marka ay yihiin wax meel loo raaca aan jirinin in la iska qaataa way adagtaa waxa kale oo xogta aan helay ee sheegaysa in filan Soomaaliya laga soo aawinay odayaashaasi ay inta ku daraysaa in laba ajenda laga lahaa odayaasha codkii laga soo duubay waa odayaashii yiri anagu haddaynu nahay reer hebel al-shabaab baa nala soo hadlay waxay yiraahdeen waxa labada dhinac ku dhimanaya waa anaga iyo isku reerkanagii sida daraadeed waxaynu doonaynaa inaynu idinka guurno oo deegaamada kale koonfureed u guurno marka xabadda inaga daaya waan guuraynaa waan heshiinaynaa hadal noocaay odayaal sheegay way odayaashan ka hadlayo arrinta markii aad fiiriso marka waa arrin gacan ku samays ah xaqiiqatan waana xogta aan helay ay waafaqaysa xogtu waxay leedahay laba qorshe ayaa looga dan lahaa arrintaani kow waa in culayska laga dulqaado beesha madaxweynaha maadaama beelaha kale ee degan Hirshabeelle iyo aagaayo dhan ee maalmihii la soo dhaafay ku eedeynayeen beesha madaxweynuhu inay ka maqan yihiin dagaalkii al-shabaab in culayska laga qaado qorshaha koowaad waa qorshaha labaadna wuxuu ahaa haddii dawladdu ay dagaalka ka baxdo taasoo haddaba already ay muuqato inaysan dagaal ku jirinin in markaasi la yiraahdo ama marmarsiyo laga dhigto in al-shabaab iyo dadkii deegaanka ay wada hadleen oo ayagu ay wax dhamaysteen dawladdu markaa ay saa isaga daysay marka labada qorsho laga leeyahay waa laba qorsho noocaaya
arrinta odayaashu ma aha arrin xaqiiqa ah waxaad qiyaastaa odaygii hadlayay ee laajadii aynu ogeyn ku hadlayay وعادي laajada qabiil balaajid bay leeyihiin laakiin ninka odaygaasi la reerka ay al-shabaabka ah ee jooga meesha loo yaqaan Hirshabeelle dhulka kale ee Soomaaliya ee uu ku dhax dhuuman karayo waa dhulkee dhulka kale aysan reerkiisu deganayn oo uu ku dhax noolaan karayo isagoo al-shabaab ah laajada uu watana laajada odaygaasi ay tahay waa dhulkee way ma jirto marka waa hadal ku tirkutaan ah sidana al-shabaab qaabka u shaqeeyaan waxa weeye dadka deegaanka ay dhibaataynayaan isla dadkooda ciidan ka dhigtaan ayaga loo isticmaala dadkooda in dhibaatayaan ma jiro gobol dadka inta laga wada meel kale la geeyo isla markaasna ay dhibaateyn karaan tusaale ugu haboon ma doonayo in dadka qabiilada waxa uu dadka qabiil ku jaayfeeyay ma ahi laakiin tusaale qof afka mayga ku hadlay caawa hadii la geeyo meesha loo yaqaan Hargeysa ma operation bu ka fulin karaya maya garow ma operation bu ka fulin karaya maya ka fulin karaya meelo badan aysan ka fulin karin oo luqadda aan looga hadal baa jira sidoo kale ninka ku hadlaya afka ninka odayga ah beelahaasi sida abgaasha oo kale taa oo laajada noocaas leh halka uu ku dhuuman karayo oo uu qaraxyo ka fulinayo oo aan reerkiisa degan halkee way ma garan karaan kullee laakiin waxaan logically aan shaqayn karin way qodobka intaas oo gudbaya waa arrin fake news oo dadka loo sheegayo la soo abaabulay waana arrin la doonayo in dagaalka al-shabaab looga dhuunto way waa qodobka labaad taasina nooga baxaya dagaalka ka socday gobolka Hiiraan runtii fashil buu ku dhawyaa marar badan baan iri waxaana keenaya waxa weeye rag xamar laga soo diray baa ummadii kala qaybinaya beel baa dadkii isaga horkeena beel aaminaysa ma jirto waana qorshe la sameeyay dadka aan ogahay inay mashruucan ugu sareeyaan kala qaybinta ummadda iyo joojinta al-shabaabka loola dagaalamayo waxaana baroonka Sambaloshe waa ninkii ta yimaaday yiri dawladdu waxa ma karanaysa qabaa'iladu dagaalka soo gala dawladdu waxa ma karanayso waa hadal waxba ka jirin weeye inkastoo maamulka Hiiraan ay yiraahdeen annagu raashin iyo bariis iyo baasta midna oo baahan ciidan iyo technical oo baahan baqaaradii dawladda waxa ku jira hub technical baa ku jira waxa ku jira ciidan ma jira qaar ba dibadda u maqan qaar ba xarumaha ku jira qaar ba xerooyin aan dagaal ka socon jooga in la geeyay ahayd hadii dawladdu ay dagaalka dab ka tahay in Hiiraan 3,000 askari la geeyay ahayd diyaarada lagu daabulo hubna la geeyay ahayd markaysa ka bacdina la yiraahdo gal dagaalka hadda inta aan la sameyn marka dawladdu waxa ay san hakaranin oo Sambaloshe sheegayo anigu ma garanin laakiin Sambaloshe wuxuu ka mid yahay nimanka meesha loo soo diray oo kala qaybinaya ummadda dagaalka fashilayo ka mid yahay waxa inta in kugu darayaa Sambaloshe waa ninka loo ballan qaaday in lagu bedeli doono Cali Goodlawe waa dhaxal sugaha Cali Goodlawe waana sababta Xasan Sheekh Maxamed oo la shaqeynayo oo uu baariga ugu yahay qodobkan inta sano uga baxaya finally xaga hadlaya Basra iyo Haramacad qodobka igu dambeeya ah aan muuqaalka soo kooban doonaya waxaynu arkaynaa in asbuuc walba jamca walba Haramacad la geenayo Basra ka bacdina dagaal ba'an uu ka dhacayo galabka Sabtida laga soo baxayo asbuucii hore Allah u naxariistay oo Farxaan Qaralo u dhintay subaxii baa dagaal ba'an uu meesha ka dhacay galabkii dambeena waa ka soo gureen isla galabkii waa ka soo gureen Haramacad iyo hay'adda nabad sugidda oo dagaalkaasi ay markaa abaabuleysay maantay tana oo jamaacana sidii baa loo galay ciidan aad u badan oo Haramacad baan halka ku dhintay su'aalo badan iyo madowba arintaas dul saaran waxa Haramacad iyo Basra isku aadinaya ciidan badan oo military xabar jooga hadii ciidan loo dirayo waxa loogu diray ciidamadii military sida gorgor ciidamada kale ee dagaalka nooca loogu talagalay Haramacad waa ciidan booliisna loogu talagalay xasilinta magaalooyinka khaasatan sida caasimadda oo kale waxa inta u dheer Haramacad waa ciidan ku takhasusay al-shabaab ka meelaha guryaha isku soo xiristay hoteelada qaabkii ay uga bixin lahaayeen baa loogu talagalay waa booliis caadi ah gal lagu arka booliis loo dirayo shaqo xoreyn iyo shaqo military loogu talagalay gal lagu arka markaysan waxa kale oo la yaab leh oo ayaduna ilaa hadda cid runtii ka jawaabtay aysan jirin ba waxay tahay Basra meesha la yiraahdo hadii la qabsado waa maxay sababta looga soo baxayo su'aasha ma garanayo sababta looga jawaab waayay sakan hadiiba aan la haysan karin oo capability ciidan badan oo meesha haysan kara aysan jirin waa maxay sababta loo weeraray marka ugu horeysa oo loo aaday isweydii hadii aan ciidan loo haynin qabsa haysan kara meesha waa maxay sababta loo aaday loo qabsanayo hadii sal qabsaday waa maxay sababta looga baxay marka bal iswaafaj markaysa jimca walba dad baa ku baabacaya dhalinyarada dab lagu shubaya sabtin waa laga baxaya jimca dab waa la galaya sabtin waa laga baxaya ma fahmin anigu kulay aysan ciidan loo hayn kara ma dadka laga daayay macadka loogu baabiinaya haddaan meesha tala qabsado aan maamul laga sameyn karinin way loo aadaya loogu dhimanaya that is the point
hal bil tiyaad ugu dambeysay kaliya intaasoo qof baa ku dhimatay caawan way ka baxayaan berri bay ka baxayaan caawa way ka baxayaan ma garanaya marka danta uu Mahad Salaad ka leeyahay meeshaasi ciidankaana ugu baabi'inayo waxaan kaloo intaa dheer in hoos loo dhigay kaalintii magaca Haramcad iyo magaca loo yaqaano Gorgor dadka qaybo waxay leeyihiin xoogaalada waa la burburin rabaa ciidankaasi waxaa la doonayaa in la fashiliyo oo dagaalada lagu fashiliyo ka bacdina markii la arkay in dagaalada lagu fashiliyo in markaasi magacooda la tirtiro oo la burburiyo la bedelo oo laga dhigo ciidan markaasi fashilmay dad baa arintaasi qaba laakiin xogta ma xaqiijin karayo intaasaan ku soo koobayaa intaan isku soo laabanin waxaan idinka tagay sidee nabadino wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh